hawiye way u midaysan daarood hawiye way u midaysan yihiin iyagu sida doonaan isku caayaan laakiin hawiye daarood ma midaysna hadda hadduu wiil hawiyaha dheeli doono ama hadday gabar hawiyaha dheeli doonto waa laga badinayaa Soomaaliya waad ogtihiin qabiil halka uuna dhigay iyo meesha aan joogno ee uuna keenay 30 sano ayaa maartay qabiil iyo maxay lagu soo jiray rafaadkiisi maanta oo la rabay in maartay laga baxo oo de xaqi wanaagsan iyo dawladnimadii loo kaco ayaa waxay bilaabeen ciyalka inay qabiilo ku tartamaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا Soomaaliyeed ee qiimaha iyo qaayaha mudan aad iyo aad baa idin salaamaya soo dhawaada ayaan idin leeyahay channelka aad naga daawanaysaan waa Somali Voice TV maanta waxaan idin wadaa muuqaal ku saabsan geemkii xalay ay ciyaareen Shiine Culey iyo Idris Bebe geemkaas oo ku saabsanaa sida iyagu ay sheegeen inay u ciyaarayaan Maakhir iyo Banaadir laakiin uu ka duwanaa oo wuxuu watay yaani shaati qabiil runaantii waxay u tartamayeen sida ay maartay laga dareemayay hawiye iyo daarood runtii wax wanaagsan ma aha ayaan dhihi karaa in qabiil lagu tartamo waqti xaadirkan sababtoo ah waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed inay maartay abaaro iyo colaado la daala dhacayaan marka wax wanaagsan ma ahan in saacadan la joogo iyo waqtigan qabiil lagu tartamo Soomaaliya waad ogtihiin qabiil halka uuna dhigay iyo meesha aan joogno ee uuna keenay 30 sano ayaa maartay qabiil iyo maxay lagu soo jiray rafaadkiisi maanta oo la rabay in maartay laga baxo oo de xaqi wanaagsan iyo dawladnimadii loo kaco ayaa waxay bilaabeen ciyalka inay qabiilo ku tartamaan waa wax soo socday oo hadda ma bilaabanin xalay ma bilaabanin waa wax soo socday runaantii aniga ma ahi qof taageera arrimahan oo kaleeto xitaa maartay ma daawado miyi xitaa qofka daawada markii qabiil loo tartamayo laakiin xalay baan dhihi karaa waan daawaday hadda ka horna maana daawanin hadda kadibna ma rajeynayo insha Allah inaan daawado laakiin xalay waan daawado laakiin sababta aan xalay u daawaday ayaa ahayd bal inaan ogaado waxa meesha ku jiro marka xalay maxay hayday tartan bay qabsadeen nimankaas dhalinyarada ee qurbaha jooga marka waxa dhacday in maartay uu Shiine Culey ku badiyay laba geem bay ciyaareen geemkii hore Shiine Culey wuxuu ku badiyay 1 milyan iyo ka badan oo coins halka magaciisina uu helay Idris Bebe uu helay 200 geemka dambe Shiine Culey wuxuu helay 3 milyan halka uu helay Idris Bebena 400 runaantii waa waxaan maartay la malaysan karin lacagta inta dhan nimanka qurbaha iska jooga iska raaxaysanay nolosha haysta lagu bixinayo maartay lama malaysan karo kulli lacagtaas markii hadda coinska la xisaabo waxay noqonaysaa lacagan inaba caadihiin 3 milyan coins hadii la xisaabo lacaga aad u badan oo yaani u tar lahayd ummadda Soomaaliyeed ee abaaraha ay hareeyeen iyo wax u tari lahayd haddana waad ogtihiin colaadaha wadanka jira dawladda Soomaaliyeedna waxay cilaamisay in maartay walaalaha Soomaaliyeed ee baahan ee abaaraha ay hayaan in la soo taakuleeyo oo la soo garab qabto marka xalay waxa daawanaysay geemkaas 35 kun ka badan macna ya daawanaysay runaantii waa wax aan maartay aan la melisan karin dadka halka iskugu imaaday qabiil dartii iskugu imaaday waa waxaan maartay aan macquul ahayn oo aan wanaagsanayn waay hadii ba halka lacag lagu bixin yaani qurba joog oo shaqo haysto oo ladan lacag la siinayo aad iyo aad aniga waan uga xumahay sababtoo ah waxa baahan caruur Soomaaliyeed hooyooyin Soomaaliyeed ayaa baahan oo macluul dhimanaya waxa la yiri intaas oo milyan oo Soomaali aba maartay macluul dhimanaysa la yiri oo runtii wax aad looga xumaada ah halka ay dadkii Soomaaliyeed ee dhaqaale haysteen ay ku bixinayaan niman iska ciyeel ah oo iska raaxaysta oo qurbaha iskaga ladan oo dhibaatan iyo dad iyo waxba ka ogeyn marka haddana taa waxaba u sii dheer in la isku sii diro qabiiladii Soomaaliyeed oo maartay madax la isku sii geliyo
xalay marka wuxuu sheegay Idris Bebe inuu maaragtay laga guuleystay laakiin wuxuu kaloo 35 kun ka hor sheegay in qabiil maaragtay in hawiye iyo daarood macnaha daaroodka uu u midaysan yahay hawiyuhuna aysan midaysnayn halka maxaa ka iman kara nacayb iyo kala fogaansho asaga Idris Bebe markaas wuxuu islahaa yani wax amaan oo daarood amaan laakiin amaan ma la dhihi karo waa wax yani si kala fogeynaya ummadda Soomaaliyeed marka Idris Bebe kulli waxaan ka hayaa muuqaal kaasoo rabo inaan idin la wadaago runaantii mana fiicno in hadda sidaas ummadda Soomaaliyeed loo sii kala fogeeyo daaroodkuna waan ogahay oo iyagana way xamaasad badan yihiin way maaragtay waxaan ayaga garab siinaya ma ahan laakiin ayagana dad qabyaalada jecel waay runaantii waan runtii way midaysan yihiin waa runtii marka hadii in la sii dhaho la sii kala midoobo hala ka sii horimaado yaanan anigu taageersanayn marka Soomaali oo dhan yani waxaan kula talinayaa inay qabiilka iska daayaan marka hore caruurtan meelaha TikTok iyo waxaas la fadhiya qabiilkana in laga waantoobo qofka waxaya walaaladiis baahan waxa siiyo waxa macquula in ehelkiisa ugu dhow qofka hadda giftiga intaas oo kun oo gaday يعني waxaa macquula in ehelkiisa ay ka gaajisan yihiin oo uusan la hadlin xitaa telefoon uu ka qabanin marka waxba yana hadalka idin ku sii badinin bal intaana waana iga tahay waxaan idin ka codsanayaa inaad maaragtay muuqaalkan hadii aad aragtaan si shay gareysaan ummadda Soomaaliyeed sidoo u gaaro sababtoo ah in la iswaaniyo waa wax wanaagsan marka Soomaaliya waana iga tahay qabiilka hal iska daayo qaranka loo jihaysto dawladda hal la dhisto colaadaha hal iska daayo kala faquuqa iyo kala fogeynta hala joojiyo intaasi waa waanadeyda hadii aad maartay halkan is soo gaadhay oo maartay muuqaalkana aad aragto si shay gareeyaan ku leeyahay laakiin bal ila dhageyso muuqaalkii walaalkeen Idris Bebe oo maartay uu ku kicinay beeshiisa asaga oo maartay xogaa yara careysan bal muuqaalka ila daawada maxay heeday bal wixii fikir oo qabtaana hoos ku soo reeba oo commentiga igu soo reeba waxaan idin leeyahay sidaas nabadgelyo daawasho wanaagsan hawiye hadduu hadda game daaradu la ciyaaray iska dhaaf maxay yar wana laga badinayaa sax marjeerteenka iyo ogaaleenka iyo dhulbahantaha sidaad aragteen waxay ku tartamaan leebalo 15 milyan 20 milyan habar gidir iyo abgaal waxa ku tartamaa ma aragteen habar gidir iyo mursado waxa ku tartamaa ma aragteen maya dhibki jira wuxuu yahay raggani wayna kala jiraan wayna wada jiraan macnaheedu waxay tahay shiina markuu nin hawiya la ciyaaray garab baa la siinaya laakiin markii daaroodka dhexdooda ay noqoto dhib mal hays dagaal hadii rabaan hawiye way u midaysiin daarood hawiye way u midaysiin iyagu sida doonay isku caayaan laakiin hawiye daarood ma midaysan hadda haduu wiil hawiyaha dheeli doono ama haday gabar hawiyaha dheeli doonto waa laga badinayaa daarood game markii la yiraahdo hawiye way u midaysiin shiina waa iga guuleysatay inaad arka cali waxaan aaminsanaa next time daa ciyaarno xitaa adoo hawiye adoo daarooda inaad iga badi doonto waan ku qari guusha habeen wanaagsan ma sha Allah aad baa u mahadsantahay oo ku salaamaya